مشروعاً أمر هي الستيت هندسيسي وحو كيمي أما بلوضي لبقن إيو سغاليو طبانكي وحا صوت حق الكورونا فيروسكي أما كوفيد 19 كي وحا دبلو بلابي لبقن إيو كوي لباتنكي intaasna waxa laga shaqeynayay infrastructure-ka guud ee xaafadda sida cagaarintii wadooyinkii planningkii ceelashii la qodo in xaafadda maartay la nidaamiyo 2024 waxaan u bilownay guriyihii deegaanka aan ugu talagalnay dadka xaafadda Amar Hill Estate ama mashruucan waxa la oran karaa waa mashruuca labaad ee ugu weyn Puntland marka laga yimaado dekada Garacad waa mashruuca labaad ee ka socda Puntland xaafadan waxaan hadda ka hirgelinay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland mashruucan marka wuxuu ka kooban yahay ama afar company bay ka kooban tahay Amar Hill Estate qayb la yiraahdo real estate-ka oo guryaha iyo dhulka ah qayb la yiraahdo production-ka oo warshadaha sida warshada chayga bulkeetiga shubka iyo qayb la yiraahdo construction-ka ama contractor-ka oo dhismayaal ka qabata magaalada xaafadana dhisa qayb la yiraahdo building materials oo adeega iyo qalabka materialka warehouse-keedii leh iyo qayb la yiraahdo consultancy oo ka tala bixisa dhismayaasha xaafadda iyo mashaariicda guud ee Puntland ka socda magacaygu waa Cabdicasiis Cabdulaahi waxaan ka mid ahay injineerada Amar Hill Estate waxaan kaliya rabaa inaan ku daro Amar Hill Estate waxay kala qaadan tahay shirkad badan isku dhex jira weeye ugu horeysa qaybta real estate-ka oo hadda aad daawateen mashaariicda socda ugu weyn yahay xaafadda Amar Village waxa ku xiga qaybta production-ka warshadihii iyo materialkii waxa kaloo ku xiga iyona building materialkii marka qaybahaas oo ka kooban tahay waxa kaloo u dambeeya qaybta ugu muhiimsan ah waa qaybta construction-ka oo gacanta ku haysta mashruucan iyo qaybta consultancy-ga oo talin u ah marka waxaan waxyar inaan ku daro qaybta construction-ka iyo consultancy-gu iyagoo mashruucan gacanta ku haya waxay haddana loo diyaariyay inay fulin karaan mashruuc kasta oo geeyina Puntland la rabo in laga fuliyo Amar Hill Estate waxay awood u leedahay inay handle garayso mashaariicda kuwa shakhsiyaad ku leeyihiin iyo kuwa ganacsiyada intaba oo laga fulinayo dhammaan geeyina Puntland insha Allah soo dhawaada waxa weeye guryaha kan horta waa package isla socda weeye package isla socda waxay ku yihiin meel gooni ay ku yaaleen security bay leeyihiin security bay leeyihiin nadaafad bay leeyihiin geeday leeyihiin meel lagu socday leeyihiin waxbarashadii bay leeyihiin masaajidadii bay leeyihiin waxa kan waxa weeye wax isla socda oo package weeye waad ogtihiin oo hadaad maanta fiile ka dhisatid magaalada Garowe ama magaalada Gaalkacyo waxaad u baahan tahay wax ku ilaaliya u baahan tahay in darbiga laga soo boodayo oo tuu ka soo boodayo ama mid ku dilay ka soo boodayo horta ma kala garan kartid laakiin waxa weeye meeshan waa fiile go'an oo xiran oo security-geeda leh حتى وحال لو سمينيا إن سول قالوا أغفى اللغون وسسوب قليبا مشروعك وحوي مقالة الجروة هذا اللي جه الجري محامكور هذا مقالوي كرنا واللي جه الجري دونا قال كعيدا هذا شفتها وحال جيابا إن شاء الله ودي له إنه إن اللي جه الجري على جيابا مقالوي كوحي قول مقالة وحبان مقيبنا هذا وحال جيابا تا هدي بريها اللي جه الجري تن إن استال اللي جه الجري شركة وحوية أمل وشركة وضرية لوكالة جودها كشقيسة محاكور هذا ضدك جوده شقية مركب جريها كان وحيالها نوصهر مرنا وحيالها هو وين وحكم ذا وحوية دبليه أرو غرباوي منها سجاشة كودي وحكسر لابتي دبده كسر لابت أول دبد بنجري سجاشة كودي وودك كندا كسر لابت سجاشة كودي شروري أروح السعودة صومالي أروح السعودة حنروح السعودة صومالي والسعودة وحيا هاي إن ودك يكسر لابت أودجو مركب دبعين عندجو واحد يويد وردتك قارنا جودها الوها يستقارنا وحوي ومال بكوحرسي مركزان صومالي أنا قعدت قبال فراك على بحي نيروبي وندقي مارت
xawaalada aan ugu horeyso aan bilaabay waxa ku aasaasay soo noqoshadii Soomaaliya aan gali waayay iyo qurbihii aan ka yimid horta waxa weeye dadka qurbaawiga dhibaato dibadda waa ku qabaan gudahana waa ku qabaan dadkeeda dibadda gudaha jooga waxa la rabaa ammaan in la helo qofka qurbaha ka imaanaya ammaan buu u baahan yahay ammaan ayuu u baahan yahay qofka dibadda ka yimaada marka waxa weeye meel fiican buu u baahan yahay meel qurxoon buu u baahan yahay hadda village-kaas la samaynayo ani waxa igu qoran nafsadayda meesha ku taayar gareena guri weyn baan ka qaatay guriga weyn waxaan uga qaatay inaan ku taayar garoobo oo meesha ay noqoto meeshii ugu dambeysay haddii ilaahay idmo oo madaxayga la dhigi lahaa dadka qurbaha marka waxa weeye waxaan dhihi lahaa waxa weeye wadamada gaalada waxba laga dheefi mayo laakiin anugu dhihi maya ka soo wada kaca dhihi mayo qof walba duruuftiisu leeyahay dadka lagama soo saari karo qurbaha lagama soo wada saari karo qaar baa ku dhalay caruurtooda ka soo kacayn karin dhibaato wax ka sii leeyahay laakiin waxa target noo ah laftigeeda kuwa gudaha jooga inaysan tagin kuwa gudaha jooga inaysan dibadda naga aadin oo gudaha loo jooga kuwa dibadduna ay ka soo kacaan intii ka soo kici karta maarta hadda dad badan lama soo celin karta ilmihii ay ku dhasheen aniga 86 ilmihii igu dhashay Kanada igu dhashay anigu ma soo celin karo meeshii ku guursadeen ilmay ku dhaleen waxba kama qaban karo laakiin tala maanta tala la leeyahay dadka jooga dhalinyarta anagu waa gaboonay dadka dhalinyarta jooga qurbaha iska dhaafa sidoo Sheekh Sancaani uu sheegay oo kale waxa weeye wadanka yaan laga tagin wadanka hal la joogo hal yimaado hal uu soo noqdo qofkii xoog la maanta ku soo noqdo maarta walaaliyaal horta mashruucaas waxa weeye amal real estate waxa loogu talagalay dadka dibadda iyo kuwa gudaha labadaba waa loogu talagalay kuwa guduhuna waa ka faa'iideysan karaan kuwa dibadduna waa ka faa'iideysan karaan wallaahi inaan beenin sheegeen 6 sano ka hor baa waxaan dabcay guri inaan ka dhisto meesha la yiraahdo Garowe ka dhisto Garowe waan joogay inaan guri ka dhistaan dabcay markaas aan gurigii waxaan isaga dhaafay markii la yiri aan go'aansanay inaan real estate sameeyno baa waxaan isaga dhaafay maxaa guri laba villa yar meelaha inta ka samaysatay aad waardiye kari xaaska xitaa uga matay karti laakiin gurigeyga maanta amal real estate ka dhex sameeyo waa inta xirtaan ka dhaqaaqaya ammaankiisa waa la sugaya nadaafadiisa waa la sugaya wax walba la sugaya hadda rabana waa kireysan inta ka maqana ya inta ka maqanayna waxa weeye waa i xirnaanaya maanta marka horta meesha walaalayaal waxa weeye waa package isla socda macnaha qiimaha tirada badan mararka qaar kood yeesan in wareerin hadda fiila caadi ah dhisatida 100 ku dhisatid hadda 100 la mid ma 100 la mid ma dugsi quraan bixita leeyahay 4 meelood baa weerar dugsi quraan laga sameeyay 3 masjid bay leeyihiin mid jimcaha lagu tukanayo alfiiraha jimcaha lagu tukanayo waxay leeyihiin maxaan ku iraahdaa iskuulkii bay leeyihiin hatta waxaan ku qasabnay dadka iskuulka sameeynaya in international school keenaan oo language English Arabiga kulli ayagoo yaqaan maartay dibadda ay jaamacadaha u aadan haday rabaan way hadii kale gudaha ka yeelan haddaan fursad helana hatta jaamacadii dibadda loo aadi lahaa meesha laftigeeda ku dar karnaa maartay dhulku waa dhul weyn 4 kiiloomitir oo waxaan sameeynay 4 kiiloomitir oo waxaan sameeynay magaalada intay ka tagto meesha gaaraysa oo laamiya korontadii baan gelinay biyihii baan gelinay waxaan loo dhamaystiray laba arko qofka halka gudaheeda gala waa qof Yurub jooga way ammaan ahaan wax walba waa mashruuci afraad ee amal real estate ay ku fakarto markii ay dacwad badan ka timid dadweynaha oo guryahaas aad iyo aad qofkii yimaadaaba wuxuu yiraahdaa war guryo ma dhistaan war dadku ha soo noqda war dadka soo celiyo war guryo dhisa mashruuca kan baa Ilaahay nagu aadiyay inta markay ka soo harto mashruuca kani lacag badanna waa gashay guryo quality leh inaan dhisno oo community gated ayaa nooga fiicnaatay inaan wuxuun iska dhisno iska bilowno guryaha kan oo dadweynuhu ay aad waxay noo weydiinayeen xagga qiimaha iyo quality-ga labadaas bay wax naga weydiinayeen qiimaha iyo quality-ga quality-gina wax aanu la harnay ma jirin aad iyo aad baanu qiimahoodana u hagaajinay aniga magaaladan gaalkacyo waxaan ka dhisay guri
booskii waxaan ka bixishay 25,000 gurigiina ninka injineerka ahaa wuxuu ku dhisay 55,000 lacagtaas waxay isku noqotay lacag 80,000 waana guryihii villooyinka ahaa ee hadda ayna tusinayeen wiilashatan haddii loo fiiriyo guryaha hadda ay ka dhisayaan waxa ka wanaagsan guryaha Garowe sababtu maxay tahay meel community oo xiran oo gator waa yihiin jabnaana guriga villada iyo guriga kan gara gaalkacayna ka Garowe waa ka jaban sidaas buu ku haboonaan u yeeshay dadka dibadaha ka imaanaya guryahan hadda markay yimaadaan ama gabdhaha ka imaanaya Mareykanka ama Yurub ka imaanaya guriga waxa ay ka bedelaan waxaan ku arkay guryaha hadda la dhisaan gareeyay waxay ka bedelaan waxaan ku arkay jikada iyo fadhiga labadaas ay iyagu wax ka bedelayaan labadaas iyaga aad iyo aad bay wax uga arkeen gabdhaha dibadaha ka imaanaya ma garanayo waxay special oo iyaga ay ugu tahay laakiin labadaas isla markaa waxay ka bedelaan guryahaas meel kale oo quality-giisa wax laga bedelay ma ana arkinin walaalayaal guryaha kan baa anaga nagu jiray ufiqiisu nagu ahaa Garowe guryahaas insha Allah taala ilaa hadda dhowr boqol bay marayaan inta la gatay waana sii soconayaan aniga waxa weeye waxaan soo jeedin lahaa guryahaas nala arka nala rogroga nala fiiriya wax naga dhaha mustaqbalka isku daya bal inaad wax ka gadataan haddaad awoodi kartaan haddii kalena message-ka naga qaado oo dadkii dibadaha jooga nooga gaarsiiya intaan kaliya kuma aanan laakiin gurigan waxa ku xiga guryaha kan waxa ku xiga oo iyagu haddaba sanadkan bay inay bilowdaan ama ka kala bilowgiisa bilowdaan ku xiga guri dheer oo aanu Muqdisho ka dhisayno Amal Real Estate Sooma ay bandhiginin waxa ku jira hotel weyn oo aan ka dhisi doono magaalada Kismaayo intuba waa ku jiraan marka warka ma badinahayo waan idin mahadnaqayaa soo dhawaadaan leeyahay